sidoo kale saluugsannahay sida hoose ee ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uga jawaabtay dhacdadan ismuu samayn arinku maamul buu ka dhacay maamulku inuu apologize ka bixiyay ahayd shir degdega oo galabta ay isugu yimaadeen gudiyada beelaha Swearawal iyo xildhibaanada iyo mudanayaasha la soo doortay waxa halkan la isla go'aansaday in halkan dadka fariin looga mariyo ku saabsan qodobadan soo socda waxaanu ambaaraynaynaa falkii ka dhacay maanta madaarka Hargeysa oo taabanayay hamaamuuska madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo si guud ahaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu sidoo kale saluugsannahay sida hoose ee ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uga jawaabtay dhacdadan saddex dhacdadan waxay mas'uuliyadeedu ku kooban tahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hogaamiyo madaxweyne Ciro afar dhammaan dadka Habarawal waxaan halkan fariin uga marinaynaa arinta dadkii aad doorateen ayaa hawsha gacanta ku haya inta arinta aanu meel soo joojinayno waxaan idin ka codsanaynaa inaydan wax falcelina arinta aydan ka samayn oo aad arinta nagu sintaan taladeeda aad iyo aad baa u mahadsantihiin ka baahinaynaa dhacdadii ka dhacday maanta airportka baan cabaaraynaa arinta waxa kale oo ummaddan wakiilka ka nahay u sheegaynaa haddaanu nahay daniya duca iyo hoodaale iyo odayaashii waxaanu u sheegaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyadu waa taynu ku noolahay gacanta annagaa gacanta ku hayna arrinta annagaa gacanta ku hayna annagaana noo xil saarteen oo idinka wakiila arrinkaa wax faloo laga celiya waa inaanay dhicin nabadgelyadana la ilaaliyaa arrinka ka dhacay airportka arrin heer sameeyey maaha garxashis muu samayn arinku maamul buu ka dhacay maamulku inuu apologize ka bixiyay ahayd sidana uga jawaabeenna si daciifa weeye maamulku inuu apologize ka bixiyo oo ka badheero inaanu arrinkaa dhacay aanay raalli ka ahayn oo inagala mid yihiin ayaanu haddii badankeedii leefilayna laakiin may dhicin imikana waxaanu codsanaynaa maamulku inuu ka apologize ka bixiyo waxaa dhacay askarta iyagaa diray askartu iyagay u shaqaynaysay wixii la faruun bay askartu ku shaqaysaa maamulku ha ka bixiyo arrinkaa apologize waa wax ku foolxun maamulka waa wax ku foolxun dowladnimada waa wax ku foolxun madaxnimada Britain madaxweynaha maanta jooga dee beritu ka degaya dee raalli ka noqon mayno intadoo kale ku dhacdo kuwii horena ugumay dhicin marka arrinka waxaan ku soo gabagabeynaynaa dadkuna nabadgelyada ha ilaaliyaan arrinkii annaga gacanta ku hayna wax falcelin oo samayn kartaana ma jirto sidaasaanu idinkula talinaynaa waxa ka socota iminka waddanka ood yaabaysaa markaad maqasho in la odhanayaba idaacad laga odhanayo ama TV laga odhanayaba waa in reer hebel la laayo ama reer hebel haddii maxuunkeeda leeyahay loo taliyo dee waa shii dowladnimaa joogtay taa looma baahna in la isugu yeedhana maaha waxaasoo kale waa in laga taliyo
nabadgelyo iyo khayr laga taliyo weeyaan waxaa airbortka ka dhacayna ma wanaagsana khaasatan inan yaroo uu dhalay madaxweynihii hore oo lala dhoofinayo oo haddii maxuunkeeda hawl lagu wado ayaa xitaa madaxweyne la yidhi ka har maxaa dabadii lagaga reebo dib loo soo celiyo waxaasoo kalena wax meesha gala maaha aniga taasaa aada ila foolxun annaguna haddaanu nahay odayaashii tan iyo duco iyo hooda aleba waxaasoo kale raalli kama noqon karo mana ogolaan karo mana ka talin karo waxaanu ka talinaynaa inuu dadku si walaalnimo ah oo haddii maxuunkeeda leeyahay u wada noolaado oo si raaco u tashado asalaamu calaykum